بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaan yeelo. cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oo fiinta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maxaa soo kordhay, maxaa cusub, maxaa u baahan xog ka dabageyn ah oo soo korortay, maxaa wixii hore oo la sheegay laga daba tegay. kalimaad dhowraan isku xijinaya. marka koowaad waxaan ka daba tegaynaa Turkiga duqeyntii ka dhacday waa la isku haystaa. turkigu aad buu uga dagaalamay ilaa xafiiska madaxweynaha ayaa ka hadlay, administrative-ka oo presidential administrative baa ka hadlay. laba nin oo journalistayaala oo caan ah oo ag taagnaa bayska la yiraahdo Incirlik oo ah base ay wadaagaan Mareykanka iyo Turkidu oo NATO ay leedahay, oo Air Force-ka Mareykanka iyo ay ka wada shaqeystaan, laakiin degaan ahaan ay leedahay, xukuntana gacantana ku haysto Turkigu. ayay dhabarkooda ku aadiyeen oo sawirka geliyeen oo ay dheheen halkaas waxaa ka dhacay qaraxaas weli waa la isku haystaa. beenintiisu waxaan kaloo aragnay wasiirka arrimaha dibadda Iran oo Turkiga iyo wadamo uu ku jiro u digaya oo leh cadowga ha noo soo raacinina, cadow nooma ahidin. marka la qiimeeyo xiriirka labadooda ka dhexeeyana waa laba wadan oo darisa, xuduud dheer oo 560 kilomitir ahna wadaaga. weligoodna aan border issue uusan dhex marin ilaa 1671 yani 400 oo sano ka badan ku wada nool walaalnimo iyo nabad. laakiin laba dhinac kala joogo Suuriya baa xogaa lagu kala fogaaday oo Suuriya waxa ku adkaaday Turkiga. laba dhinac bay kala ahaayeen, Turkiga adkaaday, iyagaa meesha haysta. marka waxay yiraahdaan kelmadda Ingiriiska oo la isticmaalo frenemy la yiraahdo ayaa lagu qiimeeyaa xiriirka ka dhexeeya. waa friends haddana kind of animosity ku jirto. digniintaas waxay noo soo raacinina cadowga, idinku cadow nooma ahidin. laakiin waxaa aad muhiim u ah in la sheego dowladda kaliya ee muslim ah ee cambaaraysay weerarkii uu ku qaaday Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaaday Iran waa Turki. waa dowladda kaliya oo cambaaraysay. madaxweynaha Turkigu wuxuu yiri waa arrin ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah, weerarkaas illegal weeye, in lagu qaado wadanka aan dariska nahay oo la dhibaateeyana waa cambaaraynayna. waxaan kaloo rabnaa inaan iyadana ka daba tagno. Turkigu waa inkiray wax base ah oo ajnabi uu leeyahay dalkiisa inuu ku yaalo. baseka hadda aan sheegay oo Incirlik waxaa wadaaga NATO iskale, NATO ku wada jiraan. marka maadaama uu NATO ku jiro, isaga iyo Mareykanka Air Force-kooda baa ka wada shaqeysta oo meeshaas ku midaysan isticmaalkeeda, laakiin xukunkeeda iyo maamulkeeda wax iskale Turkiga. Rubio baa hadlay, wuxuu sheegay war la yaab leh uu sheegay. xalay waxaan idiin sheegay inay la kulmeen nimankii Mareykanka ahaa iyo Israa'iiliyiintii waxaysan filayn. Rubio banaanku soo dhigay, wuxuu yiri bishii waxay sameeyaan 100 gantaal oo ballistic missile ah bay samaysataa Iran, 100 iyo ka badan. annagu difaaciisa waxaan samaynaa 6 ilaa 7 xabo. marka 93 xabo baan loo hayn difaac. macnaheedu maxay tahay? dagaalku hadduu sii socdo waxaa naga dhammaanaya difaaca iyo qabashada aan qabanayno madaafiicdooda. gantaaluhuna waa nagu shubmayaan, waana laka adkaanaya. hadalkaasi wuxuu uga soo fakaday si aan ku talagalahayn. waxaa kaloo soo fakaday oo Trump ka soo fakaday inay khasab tahay in buut lala galo. macnaheedu maxay tahay? in ciidan dhul ah, dagaal dhulka ah uu dhaco. digniinta uu bixinayo wasiirka arrimaha dibadda oo uu Turkiga magacaabayna meesha kaliya oo laga soo geli karo waa xuduudda Turkiga, laakiin u malayn maayo Turkigu inuu ogolaan doono. waxaa kaloo cad oo banaanka taala hadalkii ninkii la oran jiray Bennett
oo ahaa prime ministerkii hore ee Israa'iil uu yiri Turkigu waa Iran ta hadda ma hadda joogta iyadana target noo ah ba aad isaguna suuqa u qabsaday waxa kale soo baxday Qatar hawadeeda si fiican bay u difaacatay ilaa ay hadda wax casualty ma dhicin wax alla wixii lagu soo tuurayna way qabatay waxay sheegtay inay soo riday laba diyaaradood oo Su-24 ah oo diyaaradihii Ruushku uu siiyay ah oo la yiri ilaa 29 xabay haysataa Iran laakiin de duq iska ah oo duqoobay Iran ma aysan qiran ilaa ay haddana ma aysan sheegan inay diyaarada laga riday laakiin Qatar baa cadaysay waxa dhaawac gaaray so far gaaska naturalka ama dabiiciga ah ee Qatar waxaana gabi ahaan baa la xiray warshadii gaaska halkaas oo 20% adduunka oo dhan natural gaskiisa waa kuwa guryaha lagu kululaysto diyaaradaha lagu shidaalka loo siiyo maxaan ku yiraahdaa dabka lagu shito gaaska ay Yurub ku nooshahay oo dhan oo qabow ah oo baraf ah oo laga galo wuxuu ka yimaadaa ama inta badan Ruush iyo Qatar marka Qatar LNG waa la xiray macnaheedu maxay tahay gaaska qiimihiisa cirku ku dhagaya waa gaaska dabiiciga ah qiimihiisa cirku ku dhagaya Yurub marka la joogo reer Yurubna khatar bay ugu jiraan inay waayaan sababta ay Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalku u qaylinayaan oo ay u handadayaan Iran waa soo galeynaa dagaalka u leeyihiin waa sababtaas baysaska la duqeeyna waxay ku lahaayeen waxa kale oo cusub oo soo kordhay safaaradda Mareykanka Sacuudiga ku taala waa la qarxiyay dabcan Iran baa sheegan doonta aan baqarsanayn iyadu inay safaaradaha tii Kuwait way qarxiyeen hadda saraakiil baa ku dhimatay askar baa ku dhimatay waxay sheegeen dhowr 2 iyo 3 bay sheegeen iyo 4 laakiin dadka reer Mareykanka ay waxay leeyihiin dad badan baa naga dhintay waxa wax la yaab leh noqotay oo soo korodhay Iran waxay tiri ninka la yiraahdo Majid oo ah ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iran oo la hadlay CNN-ta wuxuu yiri anagu Aramco iyo meel gaas oo dhanba ma aanan qarxin marka gaaska dabiiciga ee Qatar iyo gaaska shirkadda oilka ugu weyn Saudi Arabia waxaa la leeyahay waxaa qarxiyay Israa'iil Tucker Carlson oo ku xiran Qatar oo prime ministerka maamulid waraysi ka duubay Al-Thani waraysi ka duubay waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo Qatar labaduba ay qabteen oo xireen Mossad agents rabay ama ku hawlana qarxin la qarxinayo meelo badan waxa la filayaa gaaska Qatar iyo Aramco iyo kii Imaaraadka ku yaalay badda saddexdaba inay qarxisay Israa'iil ujeedaduna ay tahay in la isku dhufto iyagoo la isku diro oo dagaalku uu noqdo dagaal ka dhaxeeya muslimiinta oo iyaga looga dhexbaxo waxa la yaab leh hadalka isaga oo soo baxay kulli meel kale kama arag laakiin waxaan ka arkay ninka Tucker Carlson ayaa waxa ka qaatay media oo dhan aan xiriir dhow la leh xogtan heli kara wax been ku kalifayana aan garanayn ninkaasi waa cunsuri markay timaado dadka madow iyo dadka maaragtay muslimka hadda waa iska daayay waayadan dambe waa ka degay waraysiyo uu ka soo qaaday Kirishtaanka degan Falastiin iyo maxaan ku yiraahdaa Israa'iil wax badan bay ka bedeshay aragtidiisii wuxuu arkay muslimiintu inay aysan Kirishtaanka iyo ma garanaysaa diintooda iyo nabigooda say u ixtiraamaan calayhi salaam Ciisa iyo hooyadii iyo sida ay ula dhaqmaan Israa'iiliyiintu ay aad u kala fog yihiin wuxuu ogaaday inaan uga dhownahay quraankana waxa ku jirta la tajidanna ashadda an-naasi cadaawatan lil ladina aamanu al-yahuuda والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون طبعا علىها إليهين وحي إلهي مسلمين ذاتهين يهود يا مشركين تأدونك إذن كن نعم وحا إذن كله قال هذا كوا كريشتانك oo yiri waxaan raacnay nabi ciise calayhi salaam waxa ku jira dad masaakiina oo wahanbal way qaataan hadii wax loo sheego xaq wayna dadka ugu badan oo islaamana waa iyaga marka ninka isaga ahi
sheeko dheer uu ka sheekeeyey baan aad iyo aad ula yaabay in badan oo aan idiin sheegay nimankan khaliijka ah coalitionka ay samaynayaan coalition la yaab la wey waa coalition aad u xoog badan maxaa yeelay energy power wey adduunka oo dhan iyagaa mas-uulka ah markay noqoto shidaalka gaas dabiiciya iyo midka kale oo baabuurta lagu anything oo energy loo isticmaalo nimankaasa iskale wax alla wixii fuel ku saabsan iyagaa iskale adduunka oo dhan bay maamuli karaan lacagtooday ku maamuli karaan waana powerful markay timaada lacagta oo lacagtii adduunka oo dhan bay haystaan waxaa soo baxday waxyaaba ceeb baa soo baxday dagaalkaanu soo saaray erbooradii baa la duqeeyey macnaheedu maxay tahay diyaaradii ma imaan karto mana tegi karto maxaa ku xiga waxa la cunaa la waayaya cuntada waa la keenaa cunta uma baxdo ma samaystaan dibaddaa laga keena waa la isku dhex yaacayaa mar dhow chickenkaa la waayayaa hilibkaa la waayayaa waxa la cunaa la waayayaa dibaddaa laga keenaa biyaha badday ka macaansadaan tuubooyinka haddii laga gooyo biyo ma leh marka asqo iyo gaaja u dhammaanayaan hadday timaado iyagoo saas u lacag badan oo saa u awood badan oo maraykanku 40-50 sano lasoo dhaafay uu dhuuqayay lacagtooda oo uu baysas ku lahaa waxaa la sheegay qatar unba hadda si fiican isu difaacday inaysan ba xataa haysan qalabkii difaaca dee meesha rubiya uu leeyahay annagii bay nagu yar tahay oo 6 baan samaynaa bishii oo dhan baan 6 samaynaa sanadkii 72 xabaan samaynaa iiraanna 100 bay bishii samaysataa sanadkii 1200 xabbay samaysanaysaa oo misal oo wada ballistic missile hypersonic iyo alaab waaweyn oo aan wax celinayaa jirin qaar kaba dheereeya waxyaabaha iyagu wax ku qabtaan bay samaystaan haye nimankii waxaa soo baxday in la khiyaameeyey iyagiina la isku diroo la kala dilay hadday midoobaanna aan cid ka awood badnaan kartaa jirin waxaa kaloo soo baxday oo la yaab leh nimanka iyaga ah maraykanku inuu khiyaameeyey inuusan danka lahayn inuusan difaacin xaaladdii goortay xumaatay oo dagaalkaasi dhacay uu urursaday wixiisii ha la cararo hadda waad arkayseen maraykanku waxay soo geliyeen ha laga baxo waddamadaasoo dhan waa in laga qaxaabay dheh kulli xataa masar iyo waa in laga qaxaabay dheh waxay dheheen dadka maraykankaa deg deg uga baxa xataa evacuation uma diri karaan maxaa yeelay diyaarado uma hayaan ay kusoo daadgurayaan israa'iil maxay samaysay maraykanka farta dhexay u taagtay waa isticmaashay waa raratay trump waa ku shaqaysanaysaa dagaalka waa gelisay dib ugama bixi karo faray ka haysaa dadka kaloo kacay oo tirada badan oo dowladda ku jira oo qaarkood aysan dowladda ku jirin taageerayaasha dowladda yihiin waxay ku tiri annagu indiyaanba xiriir la yeelanaynaa taariikhdaasa waxaa ka sheekeeyey Tucker Carlson oo aad hurdada uga kiciya dadkiisa soomaalida hadda ka hormar buu maagay oo aad dhulka noola jaray waana cunsuri sidiisaba dadka madow iyo nacab hadduusan nabcayn afka ka sheegtay inuusan nabcayn laakiin ay ka muuqata dhaqankiisa yuhuudda tooshka dadka ku daaray oo ugu waaweyn buu ka mid yahay dadka tooshka ku daaray oo yiri dalkan waa la haystaa dalkan in la xoreeyo u baahan yahay ayuu ka mid yahay waana nin aad loo dhageysto wuxuu sheegay oo hadalkiisi ka mid ahaa empirekii ingiriiska oo caalamka haysan jiray oo la oran jiray waa boqortooyada aan qoraxdu ka dhicin ilaa Australia ilaa North America haysatay mar waxaa awoodeedii baaba'shay oo ka saaray Asia oo dhan ka saaray iyo Middle East Israa'iil iyagaa ka takhalusay waddamadaasay awooddii uu ku lahaa intay wiiqeen kala wareegeen markay kala wareegeen oo iyagii kala xadeen oo kala maamusheen oo iska hor keeneen baa ingiriiskii meesha ka baxay maraykankii soo geliyeen waxay u egtahay biir maraykankana inay hadda ka tuurayaan oo bannaanka u tuurayaan waxay ku leeyihiin marka isaga iyo dadka la midka waxay leeyihiin waxay nagu leeyihiin buu leeyahay annagu indian ba aadaynaa America cirka hays la gasho dagaalna waa gelinay awoodeediina waa la arkay carabtii oo dhanna way ka qaxayaan oo waa laga saarayaa ilaa carabtii waxay arkeen ninkan inuu lacag ku qaadanayo been markii difaaca looga baahnaana uusan difaacayn oo iska tagay maxaa lacag lagu siinayaa marka
qof security aad albaabka dhigato tiri qorigaan hayso oo wixii soo weeraray iga dhici oo markii lagu soo weeraray qorigiisii la cararay oo kaa tegey ma lacag baad siinaysaa dambe waxaa ku xigta baysaskiina naga rarta naga guura waxaa qaraxyada ah oo ka dhacaya gudahoodana in badanoo ka mid ah Mossad baa ka shaqaysay horey uga shaqaynay imaaraadkii dabadhilifka u ahaa basically dabadhilif Zionist ahaa waxaa ku dhacaya inta badan iyaa ka dambeeya oo ku samaynaya oilkooda marka hadday Iiraan inkirtay Iiraan waxay tiri hal meelo oila iyo hal warshado wax soo saara midna ma aanan beegsan annagu baysaska iyo hoteelada Mareykanka iyo Israa'iiliyiintu ay degan yihiin baan beegsanayna iyo safaaradooda iyo meelaha iyagu ay leeyihiin laakiin ma aada iyo dowladdiina la diriirta dowladnimadeeda laakiin haba ka yaabin wadamadaas walaalaheen oo muslimka ah inaanu dhibaato u geysano dhaqaalahooda waxa ka jira brother it's not us beer public Majid oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa CNN waraysi u siiyey sida u cadeeyo qeexay digniino waa la isu diray cidii soo raacda gaalada iyo Israa'iil iyo Mareykanka dee cadow ay ka mid tahay arrintaas waa iska arrin badiihiya laakiin yani waxa la yaab leh how vulnerable sida ay u qaawan yihiin khaliijku isku halayn intay isku halayeen qof kale hantidoodii oo dhan geliyeen hadallada uu sheegay waxa ka mid ah annaga Sacuudiga yaa nooga khayr badan nooga fiican nooga dhow nooga saaxiibsan Israa'iil dibindaabiye nagu haysaa xoolay naga cuntaa dagaalayna gelisaa dadka iyagay laysaa Sacuudigu lacag buuna siiyaa not anymore say la tahay haddii Sacuudigu caqli leeyahay haddii Carabi caqli leedahay maanta waabaa ku bariyey waxay u baahan yihiin inay ciidan samaystaan oo hub samaystaan oo warshadaha iyagu ay lahaadaan oo injineerada dhisaya iyagu lahaadaan oo kuwooda wax tababartaan waxaa la yaabi jiray waxaan ku arki jiray qurbaha dhalinyaro jaamacad loo soo diray Sacuudiga oo 500 ah oo jaamacad wada dhigta oo midkiiba bishii dhowr kun oo dollar laga qaadayo dowladdaana bixinaysa 500 oo arday oo min 20 kun oo dollar laga qaadayo sanadkii waa 10 milyan oo dollar jaamacad oo dhan bay gadan karaan oo professoradeeda iyadaba raran karaan oo xagga la tagi karaan oo meesha 500 oo arday ay wax ka barayaan bay 5 kun oo arday wax bari karaan meel daran bay marka la yihiin waxaan u malaynayaa inay hurdada hadda ka kici doonaan isku halayntii American ag taagan oo lagu tartamayay oo ana bayska ugu weyn ku siinaya oo ana askarta ugu badan ila noolaanaysa Kuwait iyo Bahrain iyo wax ku dhacay wada arkaysa waxa kale cusub ciidamada iyo hubka ay gateen oo laga gaday waxa ku jira F-35 Israa'iil kuma weerari karaan hadday damacdeen la dirirto hadday damacdeen aad waa la kontroolaya GPS ka laga xiraya waataan sheegnay yaa hore Turkigu marka ay keensadaan heshiiskooda waxa ka mid ah inaan lagu khasbi karin software-ka Mareykanka inay isticmaalaan markiiba way ka saarayaan software ay leeyihiin bay gashanayaan waxay ka tuurayaan qalabka ay tuurto oo dhan GPS ko dhan bay ka bedelayaan systemkeedo dhan waxay ka dhigayaan system local ah oo Turkiya maadaama ay technology-ga aad ugu horeeyaan Sacuudiga iyo Qatar iyo Iiraan waa weerari karaan laakiin ma weerari karaan Israa'iil Mareykanna ma weerari karaan waana inay ka soo qaataan fasax marka ay diyaaradoodu meel aadayso ay weerar galayso imaaraad iyo diyaaradaha ugu qaalisan caalamka uguna horeeya laga gaday haddana ma isticmaali karaan intiisa la yeeli lahaa inay warshadaha keensadaan waa inay hurdada ka kacaan waa inay cunto samaystaan xoolo waa inay beertaan beera waa inay fashaan waa inay dhulka ay maal gashadaan oo dalkooda iyo dadkooda ay security u helaan waxa soo baxday inay qaawan yihiin waa 10 maalmood oo hawada laga xiro oo loo diido diyaarad inay ka degto maraakiibna ay u timaado gaasna ay dhoofiyaan shutdown baadiye aadayaan geeli baa lagu laabanaya waxa magaalooyin aad arkaysid shutdown bay noqonayaan wadamaya mawjeeda biyo male cuntana male waxa soo baxday oo kale oo aad la yaab u leh Mareykankii oo nin balaa ah oo khatar ah oo aan lagu dhicin oo aan la taaban karin ahaa oo isna la qaawiyey isna waa la qaawiyey marka hadda inuu guuraho ka qaxo oo iskaga baxo Middle East bay u badan tahay
تكر كارلسون هذا الكيسة وحكو تري إمباير كا مريكن كو هوس بوصعدا وحي سوكر لو اسلا سعونينا أرينتو فلويد وأرين عند جنين إيران يدا قعان سريسة مدافعلو واسدافيسا مدافعلو وكسعوتا iyaguna waa ridayaan laakiin waxa soo baxday caalamkii oo dhan hal wadan baa ruxay gabigiisii baa ruxay khalkhalna geliyay bal waa ogaan doonaa meesha ku dambayso qof dhiirada oo nafla oo geesiya baa loo baahnaa Israa'iil waa la qaawiyay iyadana waxa ay tahay baa la tusay the only option oo u haray waa inay nuclear isticmaalaan hadday nuclear isticmaalaanna haddee yaa u ballan qaaday iyaga yaa u damaanad qaaday inaan adduunka 10 wadan baa haystee 9 kale aysan ridayn 8 wadan oo kale inaysan iyaguna ridayn oo aan lala dhacayn iyaga yaa u ballan qaaday weli Hiroshima iyo Nagasaki kadib cid isticmaashay ma jirto nuclear bomb haddii cid isticmaasho dee iyagana waa loo isticmaalayaa adduunka oo dhan baa isla dhacaya كل نوال بوحو بنيسان يا روشكو مركب يوكرين بكل فنيا يوروب تاسو دم بولاد عيا يوروب تيجوا ولاد عيا مريكن كولاد عيا قعنت على سلطة عندنا تشاينا مركب واحد قبصنا يسا سعودي استيجا تشاينا تايواني مالها سلاد عيسى وعلى يابي ننكاس سيداس أمريكان كأو أبيوس قرينية ونتنياهو بعدت صومالية caalamka meesha ugu hooseysa kaga jira awood iyo dhaqaale iyo aragti iyo aqoon intaba baa u yeertay war adduunkii waaweynaa ka baxsan la oo ka noolaan la weligood meelay tageen oo aysan fara kaga tegin ma jirto marka barhurdada laga kaco oo sida la isu dhaam oo war ibtilada iyo dhibaatada nimankaasu keenaan cidna deyn maysay hadeer laga gaashaanto oo baadiyaha iyo biyaanu ka shaqeynaya beerahan ka shaqeyn hadaa maqashaan biyo iyo beero hadaa maqashaan iska ogaada waa la idin galay inta ogaada waana bilaabatay oo injineeraan ka xaynayna aan soo tababarno meel walba camera lagu xiranaya GPS yaa la dhigaya waxaan ogahay nin hadda ka hor u yimi oo baadiyaha wareegay Somaliland oo yiri injineer baan ahay beeraha ku takhasusay in uu soo gudbiyay oo ka shaqeeyay oo iyaga ay qoreen inuu soo gudbiyay distance-ga u dhaxeeya Somaliland Berbera iyo Xuutiga meesha ay degan yihiin iyo inta uu madfac ku dhici karo iyo madfac nooceeya la gaarsiin kara intee saacado 200 mitir 200 kilomitir bay isu jiraan diyaaraddu waxay u socon kartaa 20 minute waxa ninka soo qoray waa nin injineer ah oo beero ka shaqeynaya inta ogaada horaan idin ku sheegay wariyuhu waa Mossad oo injineerku waa Mossad oo macallinku waa Mossad oo nin halkaa ka yimi oo aan ahayn nin jaajuus dawladdiisa u ah ma jiro maba imaan karo kulli Netanyahu markuu xafiis booqdo alaab uga taga waa la baaraa xafiiska mararka qaarkood xafiisyada aan dadka aan lahayn qalabka technology wax lagu baaro xafiisyadoo dhan baa laga guuraa qalabka yaallo dhan baa la tuuraa baadiyaha lagu qoro oo la gubaa gurigan waa la burburiyaa dib baa loo dhisaa this much baa la iska ilaaliyaa markaasaa u yeeranaysa kaalaga maxaa ka rabtaa waan ictiraafaya miskiin kuwaan islaa waxbay u barteen waa kaa dubbe xaajigaa lasoo salaamaya xaajiga ma lasoo salaamay dubbow inaa Israa'iili tahay oo jaajuus tahay maba ogeyn nasiib darro qof kasta oo istiraahid kana xoogaa roon markaad hoos u sii fiirisid waa daloola meel daran buu leeyahay waa kuwaas dadkii dadka caymin lahaa wuxuu sheegi lahaa baa hor ordayo Israa'iil baa loo soo hooyanaya iyadaa loo imaanaya xaajigaa lasoo dhunkanaya dadkii wuxuu bartay ay saa baaba u yihiin cidina hadday kama saari karto ceelna uma qodna cidina uma maqna ilaahay baa u maqan subxaanahu wa tacaala isagaana badbaadin doona dalkaas dad dhalinyaro ah baana u kici doona oo baraarugsan waxaan ku faraxsanahay Soomaali aad u badan inay qurbaha jirto dhalinyarada yaryar oo say wallahiga oo caalamka jooga dadkaasa macna leh qabyaaladna shuqul kuma leh qashinkaasna ma aaminsana waa hurdada geopoliticska adduunkana aad bay uga warhayaan
dadkaasaa rajadeenu ku xiran tahay in dalka lagu soo celiyo iyaga dalka loo dhiibo odayaashan wada jaajuuska ah oo u kala dhuumanaya 5,000 u kala dhuumanaya oo wasakhda ah dalka laga saaro inahaasaan odhanayaa wixii soo kordha waa isla soconaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu